yaqaanaan dee boyfriend bay leeyihiin iyo girlfriend meedhan sababtu waa maxay qofka aan boyfriend ama girlfriend lahayn waxay u haystaan inuu xanuunsanayo maskaxiyan dhakhtarka la geynaya majnuun baa loo haystaa wax loo caadi ma tihid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي يدقل كين كل هاي مريكة يوتيوب فضل هذا كل عصبت هاي channel كسر دو تهرون ولا شوكتين هاد بضم هاد هاي ومركلي سوسن نقد كلا يا حلقة دي لبعض أما فرد دي لبعض يكلن كل لبعض يبرنامج كل لبعض إنه كجاه هالليني برنامج كذي تحناها إنه كردقني كن كيجو هرّي إنه سوق ليني إنه كجاه هالليني حالة قارة مظروف قارة أو إنه هيستوه بري هندمنا عاد نوجس أكردي هذا الهين تدون يفرق بدنيد barnaamijkan waa kii labaad aan idin ballan qaaday aan ku yidhi kulley 3 dhinac bay iska beel taagi doonaa oo xagga diintu maxay ka qabtaa iyo aqliga saliimka muxuu ka odhanayaa iyo caafimaad ahaan arrinkani muxuu daaran yahay ama muxuu caafimaadkiisa qofkan yeelaya intaan barnaamijkeena bilaabin kulley dhowr su'aalood baan ka jawaabayaa oo iga soo noqday maxay toolay barnaamij hore aan duubay ee kan ka horreeyay su'aalaha waxaa ka mid ahaa maxaa ku geliyay برنامج يعني كانوا برنامج كان معها برنامج كوها بون أما كلها أهم حاجة قليل سؤالها وحي هذه تمادي وحكى لو كم إذا دينتي أو محيي ترى مياه فربنا كضيعن أي إن لقى هذلي محلقة قبطوا بهن حاد كجمع رسالة سا إن يرهستيد سؤال فربنا نوع عاسة أي يقصون نقضي وح سؤالها كم إذا محاد ككل شيء جيسا في العوني يوم محيي تولي سني شرطرية جوجين وصل هالكيونه هدي أن سواق عطس وأش كوبا أوران إسلام حاكو دحق لي برامج كان سيجارة وحوط طعمنا يدين تاني ونكسنيد يوم حياة تولي شريعة ديني مركب شريعة دينا طعمنا أيه إن نكه هذا الله عن كدونه أجعل در كدونه حدنا دو سيد دونه قدر دو سيد دونه محياة تلا هو أكاد إيه إن نكه هذا الله ومد مشة الله وبوس كدي يبرتدي هالشيء أوران كرا ما أها مد نقول لا عين كرا أمن الجهر إمن كرا تكلا أوران إسلام دين تا arrimo fara badan oo diintii kamid ah ayaa halaagsamay oo meesha ka baxay ma burburayba ama dayacan ba maxad ku oga hadli weydeen eed kaga meereysanaysaan tayari caantiinka ah waxaan leeyahay taasi caantiin maaha ee waa arrin aad u weyn oo aafa ah ee maaha arrin caantiin arrimaha diinta dumay mid kamid ah ama dumaya ama burburaya ama in laga hadla ay tahay mid kamid ah weeyaan ee ma aha mid ka baxsan diinta wax gaaro barnaamij gaaro cid gaar wadato ma aha su'aalaha waxa kamid ahaa warma dadka la soo fangareeyay baad kamid tahay oo ayaad ku biirtay maxay ahayd tolay waxyaabaha diinta islaamka lidiga ku ah mar walba falaqeeya ama wax diinta islaamka ka xishootay iyagoo mar walba ku dhex jira taana waxaan ka leeyahay kulli qof la fangareeyo ama qof wax lagu soo fangareeyo la yiraahdo waxa ka hadal saad ogtihiin ama nafteeda aan ka ogsoonahay ba waxay la tahay arrinkaas inaan ahayn arrin ilaa ah ama arrin igu haboon ee la iska yiri inuu yahay akhaarta inta badan su'aalaha ay weydiinayay toos ama call ayay igu soo weydiinayeen wax comment inta badan ku baxay ma ahayn su'aalaha aan ka jawaabayay maanta waxaan isku day doonaa inaan xagga diinta wax ka nidhaahno diinta horta maxay ka qabtaa marka hore ugu horeyn arrinkan gudniinka ama khitaankan sidiisa horta diintu maxay ka qabtaa mashruuciyadiisu maxay ay tahay diintu waxay qabtaa ma tahay mise wax ummadan Soomaaliyeed islaamiyadu inta isku tageen ay dabeeto iyo ku heshiiyeen ay yiraahdeen hablaheena aynu sidaan nidhaahno oo waxaan gudniin baa leeyahay ka nusuusteena sharciyeed noqdo marka hore waa wax ku banaan sharciyan waa arrin maxay diinteena kamid ah shay qofkii ugu horeeyay ee khitaanka ama gudniinka la yimaadaan wuxuu ahaa nabiyullaahi ibraahim alayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horeeyay isku gudniinkana sharciyeed buu ahaa nabigeena maxamed iyo inaga dhamaanteena waxa la ina wada faray inaynu raacno nabiyullaahi ibraahim diintiisii xaq ahayd أهل توصيد أن رعنوا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نبي الله إبراهيم قف جوهري بلابة السنة كذي يوها إن كان إن رعنا أيا لينا أبني مذاهبتين مركبين مع نوع لماذا فقه ده أفرد مذاهب أيام ولا أنا هسه هنا قانون حياة الشافعي كمديهين إن كانوا واحد إنه وأبتر سنة من رعنا ومذهب كشافعي شافعي مر أدب كيستاج جدني كفرعوني جدني كتلاء علماء أيو لقبة إنه بنايه إنه تشريعيه إنه واحد مشروع بنايه أو دينته نقبته لكن جدني كفرعوني اللي هم رجبوا كاستاج فرق جود حياة مركز إنه إيه إنه كان فرعوني جه دوا بحالنمو قفك ولا عنا يهده مركز سو ميل أدبو كاستاج شافعي إلى حد وجارسية ويريو قفك وحن جارسية ولا قصاصية سلامته إن صاي إن يرنت ساق قبضة قاوسية جيل كذا شرشرتها ينو ولا صافر يصير يا جيل كذا شرشرية نين هدوس سماينا ده يساقون ملها وحلاق قصاص ولا جه اللي ما يه مكتئب ولا قاضية دي كواجب بس marka xubinka tarankeedu marka la googooyay xaqana la jafo xaqana la jafeeyo taleeyo la isku dhijinaya
labadii dacalba mid baa diyo gaara baa ka waajibaysa oo konton halaad noqonaysa inta magteedii oo dhammaystiran laga qaadayo idinkuna waxaad u haysataan Soomaali weynay meel kasta joogtaanba arrin yar oo sokeeya baad u haysataan diintu halkaas ay ka taagantahay sunnadeena haddaynu eegno axaadiis khaas ah ku jirta oo si gaar ah u taabanaysa malaha dee waxaanu haysanaa inagu wuxuu Nabi Maxamed nagu yiraahdo waxa fara sameeya saadhaha saa qabta ha sameynina oo kaliya inay diinteenu ku dhisan tahay diinteenu waxay ku dhisan tahay wixii leena amro leeyahay sameeya iyo wixii leena naga reebay leeyahay ka hada iyo wixii in maxay ay toole la sameynayay ee shaygii la sameynayay si loo sameynayay hadii la yiraahdo wanaajiye shayga marka sameynaysan saa wanaagsan u sameeya shayga marka qabanaysan saa wanaagsan u qabta waxay ka dhigan tahay shaygan in uu diinta marka hore ku banaan yahay oo jiraaba mashruuc weeyaan laakiin sidii loo sameynayay dariiqadii ayaa leena tusaya oo leeyahay dariiqadan umara tanna ka joogsada nusuusta sunnaha markaynu eegno qaarsi caama oo rag iyo dumarka isugu jirta ayay u sheegayaan ee ma aha qaar dumarka ku gaara markuu nabigu leeyahay fidratu khamsun dariiq sunnada wanaagsani shan weeyaan wuxuu ugu horeysay al-khitaan in la isgudo rag iyo dumarkii muu kala saarin sidoo kale waxaan rag iyo dumarka kala saarin xadiiska markuu ka sheekaynayo qofka goru meedis ku waajibaa ninkii iyo gabadhii ama qof labadii dhadigii labka markay isku tagaan ay xad shahwa iska dayaan markay maxay ahayd toole xadiiska waxa ku jirtay ida jalasa bayna shu'abiha arba'a markuu laamaheeda afarta dhexdeeda fadhiisto qofkii ninka ahaa qofkii dumarka laamaheeda afarta oo lugihii iyo gacmihii looga jeedo maxay ahayd toole ومسال ختان الختانة وديت حبي كي جدنا حبي كي كلا إيه جدنا جارو هدي ده ومد قول جدنا يهلا ما يراهدين ده لبا ختان ما لو جدنا بيستعمل أيه حلوان لها كجدنا يه ككلا يستعبتان كاسو حسقنا شيء جاي واك النصوص عام كالنصوص خاصة وتابعني سبعة كذا حديث كو حكم يدها معضية يورين يسي ونبي كلها إن حياة تولي قف الدمرة سمعنا صار كان هبلها جودة يسا مركز سمعنا صار كان هو الجوين الهباب إننا أرسية ونا يرتها بسية sababtuna maxay tahay soo sameeynaysan arrinkaasi isaga ayaa u wanaagsan qofkii dumarka ahayd nafteedii cafiifkeedii sharafteedii sawjkii iyo mustaqbalka ay yeelan lahaydno inay xiriir wanaagsan la sameeyso taa ayaa u wanaagsan isaguna marka halka waxayna tusaysaa in mar walba mutawassit aynu ahaano oo imatul wasta aynu noqono oo aynaan hadii wixii gunta laga wada maro la wada gooyano ay meeshaasi de mustaqbalkii ifaayay qofkan dumara ay lahayd oo baaba ay ama waxba ka nusqaamayaan haddii sidiisa lagu sii wada daayano uu qofkii kantaroorkiisii iyo maxay tahay ka baxaya xadkiisii wax daaqadiisa awoodiisa ka baxsan ay noqonayso dadkan daayada haya le maxay tahay hablaha la gudin hablaha ayaan la taabanin aslan horta dadkaasi sunnadii sharciga ahayd ay ka soo horjeesteen oo sunnadiin waxay noo banaysay ay leeyihiin ma jirto dadku way kala dhow yihiin qaar baa yidhi sunna waxaan ma aha ka saar meesha waa hablaha sidoo lagu sii daayo markay culimadu isku ijmaaceen in shaygan mashruuc uu yahay shay banaan uu yahay isku khilaafeen waajib ba mise waxa weeyaan sunni culimada qaar waa ku yiri waajib qaar waxa yiraahdaan waa sunni waxa la isweydiiyay horta in la gudo oo marka hore arrinkan mashruuciisa maxaa keenay meesha faa'iido ku jirta maxay tahay waxay tahay qofkan dumarka ah ee ilaahay abuuray shahwad iyo dareen ilaahay ku abuuray marka ilaahay waxa inoo jideynaayo le waxa saayay sameeyana xikmad iyo waxa ka dambaysa fawaa'id iyo mashruuc leeyahay xikmadda ka dambaysa marka maxay tahay culimadu is weydiiyeen xikmadda ka dambaysa xikmado fara badan bay sheegaan waxa ugu weyn ee maanta inaga qosayeen dul taagan waxa weeye in qofka dumara sharafteedu ilaashanto oo hadii la sii daayo ay awood iyo dareen iyo shahwo iyo maxay tahay baahintii hore ka badan ay ku keenayso arrinkan marka la mutawassiliye wixii la yara qafiifiyano oo qofkii qof nafsadiisa kantaroori kara marka mustaqbal yar heer sameystano in ku filan haysta ay noqonaysa hadii la sii daayo de gaalada waan aragnay dadka aan diinta haysanin hablahooda way sii daayeen gudniin ma yaqaanaan de boyfriend bay leeyihiin iyo girlfriend meeran sababtu waa maxay qofka aan boyfriend ma girlfriend lahayn waxay u haystaan inuu xanuunsanayo maskaxiyan dhakhtarka la geynaya majnuun baa loo haystaa wax loo leeyahay caadi ma tihid de waa runtooda oo qofkeen markuu de la sii daayo salaqsado de seetada iyo dabarka loo sii daayo de qofkii ma ishayn karaa awoodiisa wax ka badan iyo shahwo ka badan baa kicinaysa de taasna waa inuu boyfriend sameeyo girlfriend waxaan leeyahay Soomaalida ku baaqaysa ee leh diinta waxaan meelna kaga banaan diinta kuma jira ee hablaha la sii daayo وين أنا بوفر يجعل فريق وده سمستان هبليه إنه بدون إنسان متكدجال كل وجه اللي جلوس هو هرتشي إذا محيط الشعب يعلم يدولة حكومة أنا لو كله هري هين وجودين كفي عمر كسي نقطة بتشري لهين مش أنا كسر لهين قبله إنه شرفت ودي عست ودي كمان كودي إيراشان لهين كا إنه سكوا كربسانو دين تين إنه وحي كهر من عيا إنه بس وكربسان إنه كهر تجنو دين تين وحي ملك قد عيانا إنه إيراشانو
wixii aan ugu banaanayno aynu isaga dacal ugu soo wada jeesano ayaynan u kala tafaraaruqin inaan u arkin in cid gaara uun waxaan wado ay cid gaara loo soo fangareeyay waxaan si weyn uga soo horjeednaa aan 24 saacadood dagaalamayna dadka leh hal is wada raaciyo oo habluhu hasiraqsan hal sii daayo kaamarnaba yeeli mayno laakiin in hablahaynii Soomaaliyeed lagu ciyaaro meel kasta ay joogaanba oo la googoyo jidkoodii kaasaan ka soo horjeednaa uga soo wada jeesano diinteena wanaagsan aynu raacno sidayna farayso wixii cid kale min soo dhex gelisay ee diinteena wax yeelayano aynu iyadana iska caabino ayeenan odhanin hablaheena yararka lagu ciyaaro jidkooda la googoyo iyo yaan la googoyn hal sii daayo أنو تعرف حس كونه بعد الدين تاني سنة دينه شكتي وحي كسور كذا نقصانه وحي لا ينو أنو هبليه إنه يركع إلى شنو يدوم كنا شرفت له وحي داوع سو جالسين أي شرفته ده نركع إلى شنو وحي نفته ده داوع سو جالسين نركع إلى شنو أنا سكول راعنا قرب لما أنت سكول سينو أي أنا سكول على ذي إنه أنا أردن إنت كهربا وطا أي قرن لسه تاجنان ما يتيهران كوس عنا إنه قرن لسه تاجنان ما ي وندبر جوين إنهم وأنا كسور كنا أفريقيا السعودية أردن أنا وحوي سيلو تبرتر لها عرفتر لها جوين تا دمر كل جوين هاي مرة هدي وين مقلين بانو مالينا يعني دي كواجبيس إيه هدي المقلة لهنا مو أقال لهنا دي كواجبيسو تقضي والله سلا إن أنتي سير لا ترترو حياة طولي أرنكا أقادا بقى دي ودونا لهاي سلانتي سمعنا سمر كل جودة ولا جات شرعي أيوة أديك عم حياة طولي جا جوين أنت ترجع سيسي إذا ما يكون عدم بانو مالينا يو إسكت سهاشني إن برنامج كنا كحجة إحنا كإيه جدونا حاجة عقلي سليم كأه يعرف جين محوك قبا كحجة إحنا كإيه جدنا عارف مضاهن أرنكا محولي هي لبضع سنة degdega inuu iyagana soo gelin doonaa kan hore aan la yiraahdo saamay hawlo aniga xaqiiqa kamid ahaa xaqiiqa ka socday awgeed dhamantiin baa khayri bashooshiye barooqina macaydi rajeynaya su'aalaha qabteen waxaan maleynayaa waan ka jawaabay khayartu meel kasii jooganba isagoo yara balbalaaran marka si degdega ayaan u duubay ayaan isugu iman doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi